بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم مركلة ومركلة ولكن سيد علي أذن الله waxaan idin soo wadaa barnaamij cusub oo uga hadlayo siyaasadda Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan gobolka Shabeellaha Hoose iyo Koonfur Galbeed. waxaan rabaa insha Allah tacaala dhowr qodob inaan dul istaago anigoo ka ambaqaadaya cadaalad darrada eexda musuqa ka dhex jira guud ahaan beelaha ummadda Soomaaliyeed guud ahaanba gaar ahaan Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo anigu aan labadoodaba aan ka soo jeedo oo mustaqbalka insha Allah ay noqonayaan deegaan doorashadayda. haddana kama marna inaan u hadlo ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada. waxa aan is iri markaan daraaseeyay laga soo bilaabo 2000 markii la isku soo noqday dawladda u horeysay ee TNG kumeel gaarka ah Dr. Cabdulqaasim Salax Xasan hogaaminayay laga soo bilaabo ilaa hadda oo aan joogno 2020 maxaa inoo qabsoomay markaan fiiriyay maxaa naga habsaamay ciladaha jira markaan daraaseeyay waxa ay soo baxday in aan helno isbedel guud ahaan ummadda Soomaaliyeed u baahan isbedel gaar ahaan 6 gobol ayaa waxay u baahan yihiin isbedel siyaasadeed oo muuqda. waayo dadka nagu matala xildhibaanada nagu matala goboladan aan ka hadlay 6 gobol waxay ku joogaan qaab saldanad oo kale ina ugaas ina suldaan ina sheekh hebel iyo ina generaal hebel haba ku joogaane muddo dheer ay kursi ku soo fadhiyeen 2000 laga soo bilaabo qaarkood ilaa hadda bay xildhibaan yihiin. marka annaga raaligu ahayn waan ku rabnay waa walaalaheen waa dad matala waa dad beesheen ah waa dad muxuu ahaa u qalma ehel u ah laakiin hadda waxa la rabaa mutaqaanaa in muxuu isbedel siyaasad iyo dawlad wax wareegto oo meerto laakiin wax meesha kaliya ku qotanto oo saldanad ah oo la iska haysanayo ma aha. xildhibaankii wax qabtan uu mudan yahay in loo ziyaadiyo loo kordhiyo. xildhibaankii aan wax qabaninna waxaa lagama maarmaana in la iska wareejin raad inaad waad ku fashilantay siyaasadaada ma mira dhalayso siyaasadan ma dhalayska waa ku soo xiiqnay in adeernimada waxba nooma tarayso in la yiraahdo ugaasyada ay runta u sheegaan ayay ahaadeen. marka haddii ugaasyadii iyo muxuu ahaa iyo xildhibaanada isku noqdaan reer iyo qoys iyo jifo iyo xaafad isku noqdaan yaanan ka dhicin annaguna ahaano hadday timaado waxaa imaanaysa oo maantana haysato in dalka Soomaaliya guud ahaanba horumar uu gaari waayo oo mutaqaana dadkii wax soo bartay ee dalkan isbedelka iyo u keeni lahaa horkaca u keeni lahaa ay maanta caqabad lagu noqdo isbaaro ay hortaalo. isbaaradaas rabnaa inaan iska qaadno maanta sidee baan iska qaadi karnaa? waxaan soo jeedinayaa baaq marka horeyso waxaan leeyahay walaalaheen kursiyaasha ku fadhiyay xildhibaanada ah muddada dheer ee wax qaban waayay ha u qaban waayaan garaadyadooda aqoon daridooda kartiradooda ama cilad kasta ayaga haysata ayaga u taala. waxaan leenahay walaalayaal isku xishooda intaan ka badan isku xishooda waalidan ka xishooda mas'uuliyaddu waa wax Ilaahay kugu xisaabtamayo mas'uuliyaddu ma wanaagsano inaad noqoto xildhibaan qaran oo xildhibaan markhaati ah oo iska fadhiya meesha. والله waxaad arkaysaa mooshinada socdo xildhibaan bad waxay soo xilmaan maxaa laga dooday maxaa warba uma haya asaasto war ma hayo kuleeyahay waa qof iska maqan oo muxuu 2000 iska fiirsanayo oo ugaaskan ku qancinaa meesha annaga xildhibaanka ah jifa hebel haddaan annaga meesha haysano intaas ayuu ka weheshanaya qarannimadii iyo Soomaalinimadii iyo wixii loo igmaday wixii kitaabka jaamaca ku dhaartay waxba ka sheegin. ragna inta la soo doortay jifadoodii iyo reerahoodii iyo deegaanada inta wax qabtaan ka baxeen ayay Soomaali guud ahaan u doodayaan wax qabanayaan oo qadiyad Soomaaliyeed iyo ka hadlayaan mutaqaana siyaasadda caalamka ka hadlayaan. marka waxba la isdheegay Soomaaliya meeshaas waxa rabnaa raggaas muxuu ahaa horkac leh inaan ku dayarno oo aan muxuu ahaa aan wax la qaybsano noocooda aan noqono sifaadkooda oo kale aan yeelano ma rabno xildhibaan ashunka adimaya jaakada kursi inta iska surto mooshinka laga dooday xataa aan war u haynin muxuu markii uu baxo 7 cish ka bacdi loo sheegay xataa madaxweynaha xataa in la riday war uma hayo ra'iisul wasaare in la toor war uma hayo guddoonka baarlamaanka in la toor war uma hayo kala fadhida qaarkood ma soo xaadiro. marka waxaan leenahay walaalo isku xisho intaan ka badan waxaan ku leenahay magaceeni aad meesha ku joogtay muddada dheer aad ku joogtay waad kharibtay iyo magaca ummadda Soomaaliyeedba
markaan fursad sii walaalaha ka fursad xataa in adeerkaaga wax bartay ee jooga fursad sii ka kugu jifada ah ee waxtarka leh sii ha ka xaasidin adiga waxa weeyaan maxaa fursadda wareeji walaalkaaga in adeerkaaga in abtigaaga ka kugu dhow xataa noogu dhiib oo aan leenahay yani waxba tari karaa asleenahay odayaashan waxaan leenahay odayaasha dhaqanka ee soo xula waad fashilanteen wax waa soo saari weydeen warshadiin waxay noqotay warshad fadhiida waxaan leenahay hadda kadib aqoon-yahanada lagu soo wareejiyo annaga ayaa xulanayno intii one man one vote laga gaarayo annaga ayaa soo xulanayno xisbiyo iyo nidaam iyo system dawli ah ayaan wax ku soo xulan doonnaa yaa karti leh yaa aqoon leh yaa mudan ayaa insha allah aan jecelnahay inaan isku bedelno nidaamkan duugoobay ee gaamuray inaan ka guurno nidaamka wanaagsan ilaahay raalli uu ka yahay ee wax wada qabsiga ah lis aqoonsan yahay lis ictiraafa inaan wareegnaa rabnaa salaadiinta waxaan leenahay gaar ahaan kuwa awdigil nagu soo wareejiya talada iska soo wareejiya waxaad maanta garan weydeen idinkoo dhulkaas leh oo khayraadkaas leh muxuu ahaa 4 isbaarana iska qaadaysaan oo muxuu ahaa maanta wiil muxuu ahaa la keensa in hoos fadhidaan oo xildhibaanadii hortii lagu garaaco oo ogaasidiin hortii lagu garaaco oo baydhabo idinku bahdilo oo sumcadiina lagu cayaaro oo gabdhihiin lagu faraxumeeyo oo muxuu sumcadiina karaamadii lagu bahdilo ayaad qaadateen wax inoo cunto ma aha meeshaad madaxeed ahaan lahayd inaad majahada noqotay wallahi waa ayaan darro idinka aadna badeen waxaan leenahay isaga soo taga meeshaas ka soo baxa xilka aad haysaan ood ummadda magaceeda ku haysaan wax waa ku tarweyseen muxuu ahaa iska soo wareejiya aqoon-yahanada ha lagu soo wareejiyaan leenahay laba qolaan rabaa inaan la hadlo kale ayagana baaqu diro waxaan baaqu diray ummadda soomaaliyeed dhalinyarada soomaaliyeed ee 20 sano wax soo baratay ee injineero leh nooc walba leh oo maanta cimrigooda ku dhammaaday 40 sano 50 sano ku sii socda ee fursadda la siin waayo waxaan leenahay kilibka haddii soo gaaro war xaq inuu istaaga annaga raas Kiamboni raas Casayr inta ka dhaxayso ayaan u hadlaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed dulman ee ugaaska hortaagan yahay ee xildhibaan beeleedka hortaagan yahay kuwaas aniga u doodaya maanta waa ila midka ah waxaan leeyahay walaalo xaqaagu istaag nagu caawi inaan muxuu ahaa aan isla istaagno ka mudaharaadno aan ka dhiidhino nimankan muxuu ahaa mugudbiyaasha ah dalkiina la degay ummaddiina la degay wax matarayaasha ah magac reer un meesha ku jooga reerkiina xataa reerka ay sheeganayaan xataa wax qaban lahaayeen waxbay ahaan lahayd dhalinyarada intaas baaqan u diraayaa waxa kale baaq u diraayaa guddiga doorashada qaranka madax bannaan ee walaasheen Marwo Xalimiire madax ka tahay Marwo Xalimiire baaqayga hadduu soo gaaro waxaan kula walaal ittaqillaah ilaahay ka cabso mas'uuliyad baa haysaa ilaahay yawmal qiyaamah ummaddaas adigu weydiin doona adiga guddigaada la weydiin doonaa fadlan noogu soo dar criteria ama shardi ah in xildhibaanku aanu isku soo sharaxi karin xildhibaannimo muddo ka badan 3 jeer ama 2 jeer qaar baa 5 jeer 6 jeer maraayo walaal maxaa noogu fiirinaysaan ha lagu soo daro haddaan aragtidan ka dhiibanno xildhibaanku 2 xil bas aysan ka badan haynin 2 dawladood korkiisa ku dhamaatay muxuu sugayaa 2 dawladood baa dushiisa ku dhamaatay waa 8 sanadood iyo 2 sanadood isjiida 10 sanadood meesha fadhiya 10 sanadood ninkii wax soo bartay oo 30 jirka ahaa 40 sano galay goormo dalkiisu adeegaya goormo ummadiisu adeegaya Xalimiire waxaan ka codsanayaa adiga iyo guddigaaga inaad ku soo dartaan sharti ah in xildhibaanku uusan ahaan doonin xildhibaan muddo ka badan 2 jeer waxa kale noogu soo dartaan xisaabta ama shardiga noogu soo dartaan in xildhibaanku uu lumana xubinimadiisa haddii uusan tegi karin deegaanadiisa oo deegaan doorashadu ah uusan tegi karin waa inuu iska casilo xilka nin baa tagay u bareeray khatarta annaga khatarta u bareerayna al-shabaab iyo al-shaydaan iyo wax walba annaga u bareerayna dad baa diyaar u ah inay nafsadooda u furaan dadkooda dalkooda diintooda u furaan dad baa diyaar u ah walaalay garab nagu simaantay qalinkaaga ayaa shaqaynaya nimankan muxuu ahaa adiga iyo xukuumadda inta iskugu tagtaan wada tasho ka samaysaan arrinkan meel hanala ka saaro ummadda Soomaaliyeed waa dhibaatootay ciddii dhibaatada ka saar lahaydna caqabad ba hor taallo isbaarooyin baan hor yaallo isbaarooyinkan sida aan saga qaadi lahayn nagu caawiya intaas ayaan soo jeedinayaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh